waxa kaloon ka digay in haddii aan dalka laga hirgelin doorasho loo dhan yahay inay keeni karto walwal iyo walaac dhammaan shacabkii Soomaaliyeed oo qoraxda taagnaa dhammaan degmooyinka magaalada Muqdisho oo iyagu isa soo xilqaamay si magaalada dib iigu soo dhaweeyaan waxaan halkan uga dirayaa tahniyad iyo mahadnaq waxay muujiyeen muhiimadda ay leedahay dawladnimo waxay jeclaysiiyeen shaqadii aan waday inaan sii xoojiyo sidii aan xilka uga degay waxaan muddooyinkii la soo dhaafay wada tashi la sameynayay dad badan oo Soomaaliyeed oo kala jooga magaalada Muqdisho iyo dalalkii aan safarada ku soo kala bixiyay qof walba oo Soomaaliyeed oo aan soo arkay wuxuu rajo ka qabaa dalkiisa iyo horumarka dalkiisa madaxdii aan Soomaalida ahayn oo aan la kulmay waxay rajo ka qabaan iyaguna inay noqoto Soomaaliya dal ay wax la qabsadaan mustaqbalka oo laga hirgeliyo dawladnimo iftiinta meel walba aan tago shacabka Soomaaliyeed waxa ka muuqatay rajo laakiin meel walba oo aan tago waxa ka muuqatay shacabka Soomaaliyeed inay walwal iyo walaac ka qabaan xaaladda adag ee uu hadda dalku marayo sidaad ogtihiin intii aan ra'iisul wasaare ahaa ayaan ummadda Soomaaliyeed u sheegay in afartii sanaba dalka ay doorasho ka dhacdo xor ah xalaal ah laysla ogol yahay laysla aqbalsan yahay loo wada siman yahay inay tahay astaan dawladnimo oo ummadda Soomaaliyeed ay ku talaabsatay khasabna ay tahay inaan xajino inta aan dawladda ku jiray ayaan ummadda Soomaaliyeed u cadeeyay fikirkayga ku aadanaa qaabka ay tahay dalkan doorashada in looga hirgeliyo waa qaab waafaqsan dastuurka laakiin waa muhiim in dadka Soomaaliyeed ay fahmaan haddii aan lagu heshiin nidaamka doorasho oo aan lagu wada qanacsanaan lagu heshiin maayo dawladnimada ka dhalata sidaas daraadeed ayay muhiim tahay inaan ka baranno taariikhdii la soo dhaafay iyo tan maanta ka taagan dunida meelo badan oo kamid ah oo ay ugu horeeyaan dalalka dariskeena ah gaar ahaan Itoobiya oo qalaalaasaha hadda ka taagan loo aanaynayo inay salka ku hayso doorasho dib loo dhigay ama lagu heshiin waayo doorasho aan lagu heshiin ama aan la aaminsanayn inay cadaalad tahayna ama doorasho la'aanina waan ognahay taariikhda ay dalkeena ku leedahay waa muhiim marka inaan mar kale ku soo celiyo maqashiyana dhigaha shacabka Soomaaliyeed oo ah si aan uga fogaano khalalaaso dalkan ka dhaca si dawladnimadu aanay gadaal ugu dhacin si ummadda Soomaaliyeed aanay niyadda uga jabin waxa muhiim ah dalkan inay ka qabsoonto doorasho la isla ogol yahay ma aha waxaan hadda sheegayo waxaan sheegay markaan xukuumadda ku jiray waxaan ka digay inaan la ogolayn muddo kororsi waxa kaloon ka digay in haddii aan dalka laga hirgelin doorasho loo dhan yahay inay keeni karto walwal iyo walaac waxaan maanta ugu soo laabtay dalka inuu jiro walaacaas iyo walwalkaas sidaas daraadeed ayaa waxaan u dirayaa mar kale fariin dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan iyo dawladda waa muhiim in lagu heshiiyo nidaamka doorashada si ay u dhasho dawlad la isla wada ogol yahay marka lagu heshiiyo nidaamka doorashada waxa ka soo baxa oo waxay shacabka Soomaaliyeed ogol yihiin haddii aan lagu heshiin waa iyadoo khatar la geliyay dawladnimadii ummadda Soomaaliyeed loo dhoobay